بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن عشر كان وحا وقصاب سنياي مادة حسابتا فصل كسديدات وحانا يديسو جودين دون إن شاء الله أنيقوا مع عبد الوهاب عبد محمد عشرة وحا كلا سوعان كرتا أيقوا وطحنا إن شاء الله كان يوتيوب كا أقوان كرورسي حساب marka qorta aqoon kororsi waxa raacinaysa xisaab hadaan raacin xisaab kuma soo bixi doono channelka magaciisa bismillaah waxayna qoran example labaad chapter labaad maadada xisaabta oo lagu magacaabo jibaad tusaalaha labaad waxayna qoran midkeeda weyn labo ku jibaaran saddex iyo saddex ku jibaaran labo furfuris lambarka waxaan soo qaadanaynaa labo ku jibaaran saddex labo ku jibaaran saddex waxay noqonaysaa tiradan qaybtan hoose saan u soo qaadanay waxaa loo yaqaanaa sal kan waa muujiye marka salkan hoose meeqa jeer ayaa la isku dhuftay waxaan noo muujinayo lambarka hore waa saddex jeer waan ku furaynaa waxay noqonaysaa labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo waxay la mid tahay labo ku dhufo waa afar ku dhufo labo sideed su-aasha koowaad waxaan soo helay sideed tan labaad soo qaad saddex ku jibaaran labo waxay la mid tahay su-aashaan hoose waa salkii kan waa muujiyihii muujiyahan wuxuu sheegayaa inta jeer ee la isku dhuftay salkan hoose waxaa la isku dhuftay laba jeer haddii furfur waxay noqonaysaa saddex lagu dhuftay saddex waxay la mid tahay saddex ku dhufo waxay soo baxay sagaal sidaa darteed waxaan leeyahay sagaal waxa uu ka weyn yahay sideed marka waxaan ku muujinayaa jibaar ahaan oo waxaan qorayaa saddex ku jibaaran labo wuxuu ka weyn yahay labo ku jibaaran saddex halkaas ayay ku dhamaatay example labaad waxaan u gudbayaa tusaale saddexaad example saddexaadna waxaa inoo qoran midkeeba weyn shan ku jibaaran labo iyo labo ku jibaaran shan isoo qaad su-aasha koowaad waxay tahay shan lagu jibaaran labo waxay la mid tahay haddii aan furfuro waxay noqonaysaa shan lagu dhuftay shan equal waxay la mid tahay shan ku dhufo 25 soo qaada su-aasha labaad waxaan weydiiyey labo ku jibaaran shan haddii aan furfuro hoostaan waxaa loo yaqaanaa sal kan waa muujiyahan waxaa noo sheegayaa inta jeer ee la isku dhuftay tiradan hoos taalo waxaa la isku dhuftay shan jeer furfur marka labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo waxay la mid tahay labo ku dhufo waa afar labo ku dhufo sideed labo ku dhufo 16 iyo 10 lagu dhuftay labo 32 sidaa darteed marka waxaan leeyahay 32 waxa uu ka weyn yahay 25 haddii jibaraha ku muujiyo waxay noqonaysaa marka shan labo ku jibaaran shan waxa uu ka weyn yahay shan ku jibaaran labo halkaas ayay ku dhamaatay example-kii saddexaad waxaan u gudbayaa example-kii afraad waxaa inoo qoran u muuji jibaar ahaan hooyinka soo socda lamarkoo waxaa inoo weydiiyey a lagu dhuftay ba lagu dhuftay a lagu dhuftay ba lagu dhuftay a maxaa soo bixi doona furfuris su-aasha koowaad waxaan sameynayaa inaan dhinac isla warmarino xarfaha isku eg meeqa ayaan haysanaa meeqaba ayaan haysanaa aadaan haysano waa 1 2 3 dhinac isla warmari a lagu dhuftay a lagu dhuftay a lagu soo dhuftay baadaan haysamay waaye 1 2 lagu dhuftay ba lagu dhuftay ba sidaa darteed marka waxaan leeyahay hooseeyayga maadaama uu yahay isku mid yihiin halka soo qaado meeqa mar ayaan isku dhuftay 3 mar 1
كو لابو سدح مر موجيه وحنقنا سدح أو سدح مر أيام سكرفتي وأنا تمشي نوصان ما يقدر أيام بعد سكرفتي بعد لبضان وحنا يستعمل بحبه لبضان حق سوق على حبط ما يقمر أيام سكرفتي لابو جواب كده وحين قطي أو كتبان سدح هي باء أو كتبان لابو Alkasih kulimat. Example kedua. A huruf T ba, huruf T ba, huruf T ba, huruf T a, huruf T a. Wahana kalau warnanya harfa asmita. Kau law sedah. A huruf T a, huruf T a. Ban so kada kau law sedah ba. Huruf T ba, huruf T ba, huruf T ba. Bagaimana ini? Kau sehingga kau a so kada ما يقوم على سكون طيب سدح ما كنت بان سدح قيتا موسيه وباء سوقاله ما يقوم على سكون طيب سدح ما جوابته حين طيب سدح كنت بان سدح أو الغرف طيب باء كنت بان سدح example سدحات وحني سي الغرف طيب الغرف طيب أو الغرف طيب يا الغرف طيب يا الغرف طيب يا الغرف طيب وبينهم يتهاي تانو كلام ما بعنا إن بنا عصر المريو حرفها اسمه عشان حاول جودا ayat isku toosan ba sida tan oo kale maaha tan u horeyso ba ku xigo kalwaatan kadib waan nidaamiyey oo waxaan u qoray sida u kala horeeyaan tan marka u baahno in loo qoro sida kala horeeyaan sababtoo way diyaarsan tahay u horeyso yaa u dambeeyo waxaa leedahay marka meeqa ayaa haysta oo isku dhuftay saddex soo qaado jibaarkii waxaan noqonaa marka jibaarkii saddex noqonaa oo lagu dhuftay ya meeqa waaye oo labo saddex afar jibaarkii waxaan noqonaa afar waxay noqonaysaa oo ku jibaaran saddex oo lagu dhuftay ya ku jibaaran afar waa example saddexaad example ka afraad muxuu noqonayaa kan afraad wuxuu noqonayaa meeqa ayaan haystaa waa koo labo saddex afar kan marka wuxuu noqonayaa bracket furo minus soo qaado waxay isku dinaysaa meeqa mar la isku dhuftay aadan waa koo labo saddex afar oo ku jibaaran afar bracket soo halkaas ayaan qaatay example-kii afraad waxaan ku fiiraa example-ka shanaad tusaalaha shanaadna waxay noo qoran utibaac tirooyinkan soo socda taranta jibaarada isla mutaxan utibaac tirooyinkan soo socda taranta jibaarada isla mutaxan waxayna la siiyey 72 432 kun iyo su'aashan afraad oo 16 kun waxaan ku bilaabaynaa su'aasha koowaad furis waxaan la weydiiyey inaan tarantaan u qorno isla mutaxan taranta jibaarada isla mutaxan u qorno marka 72 ayaan la weydiiyey inaan keeno isimkeeda meel ay ka imaatay 72 waxaan raadinaynaa laba tiro oo la isku dhuftay oo keeni kara 72 laba tiro oo la isku dhuftay oo keeni kara 72 ama waxaa samayn kartaa su'aashan ku weydiiyo 72 ayaa waxaa u qaybinayaa labo waxaa leedahay 72 loo qaybi labo waxaa soo baxaya 36 ama waxaa kaloo raadin kartaa laba tiro haddii marka 36 haddii laba ku dhufto waxay soo baxaya 72 marka waxaa leedahay waxay ka imaan 72 labo lagu dhuftay 36 kadib waxaa leedahay 36dan halkee bay ka imaatay 36 waxay ka imaatay labadani soo qaad marka hore labo lagu dhuftay waxaa raadinaysaa marka laba tiro oo marka la isku dhufto keenay 36 ama waxaa samayn kartaa 36dan labo u qaybi waxaa soo baxay 18 labada u qaybi soo qaado labo lagu dhuftay 36 labo qaybi 18 haddana waxaa lagu weydiinaa 18kan halkee ka imaatay sababtoo waxaan adin waxay tahay waa isiro inaan soo saaro isirka tirada meel ka imaata asal ahaan
sideed iyo tobankan waxay ka imaatay laba lagu dhuftay sagaal ama waxaa dhihi kartaa sideed iyo tobankan laba u qaybi maxay soo baxayo sagaal labo lagu dhuftay labo lagu sii dhuftay sideed iyo toban waxay ka imaatay sideed iyo toban waxay ka imaatay sagaal lagu dhuftay labo labo lagu dhuftay sagaal ayay ka imaatay kadib waxaa leedahay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay sagaal halkee bay ka imaatay sagaal waxay ka imaatay saddex lagu dhuftay saddex kadib waxaan sameynayaa inaan u qoro taranta tijaaradan ku saleeyo marka kadib waxaan leeyahay labadan meeqa mar la isku dhuftay saddex mar waxaan leeyahay marka labo ku jibaaran saddex oo lagu dhuftay saddexdan waxaa ka soo qaado saddex ku jibaaran labo su-aasha la weydiiyo ahayd u tibaax tirooyinkan soo socdo taranta jibaarada isiro mutaxan waxaana la weydiiyey su-aasha koowaad 72 marka taranta jibaarada isiro mutaxan waxay noqotay saddex labo ku jibaaran saddex oo lagu dhuftay saddex ku jibaaran labo waxaan gudbayaa su-aasha labaad waxaan la weydiiyey tan labaad inaan soo helno 432 waxay la mid tahay koo waxaa isweydiinaysaa 432 halkee bay ka imaatay sheega laba tiro isku dhuftay keeni kartaa 432 ama waxaa samayn kartaa 432 waxaa u qaybisaa labo 432 u qaybi labo waxaa soo baxayo 216 waxaa leedahay marka labo lagu dhuftay 216 ayaa waxay ka imaatay 432 labo lagu dhuftay 216 halkee bay ka imaatay waxaad raadinaysaa laba tiro la isku dhuftay oo keeni karta 216 ama waxaa samaynaysaa 216 laba u qaybi waxaa soo baxaya 108 labo lagu dhuftay 108 ayaa waxay ka imaatay 216 labo lagu dhuftay labo lagu sii dhuftay 108 halkee bay ka imaatay waxaad raadinaysaa laba tiro la isku dhuftay oo keenaysa 108 ama 108 laba u qaybi waxaa soo baxaya 54 lagu dhuftay labo oo lagu sii dhuftay 54 oo ay u taagan tahay inay ka imaatay 108 labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo waxaa lagu weydiiyey 55 halkee bay ka imaatay 54 halkee bay ka imaatay 54 waxay ka imaatay 54 tirakii keeni karta raadi ama 54 labo u qaybi lagu dhuftay labo waxaa soo baxay waxay tahay 27 soo baxayso intaan soo qaado marka labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu sii dhuftay 27 maxaa keeni karo sheeg labo tiro la isku dhuftay keenaysa 27 waa saddex lagu dhuftay sagaal saddex lagu dhuftay sagaal ayaa waxay keeni kartaa 27 intaan soo qaado labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay saddex lagu dhuftay sagaal maxaa keeni karo sagaal waxaa keeni karo saddex lagu dhuftay saddex kadib waxaa samaynaysaa tarankan waxaa qoraysaa jibaarada isir mutaxan marka jibaar ahaan u muuji marka su-aasha meesha noo saaran waxaan muujinaynaa jibaar ahaan waxaan u muujin karnaa lamarkow beeskayga ama salkayga meeqo waaye labo meeqo maraa la isku dhuftay 1 2 3 4 ku jibaaran 4 oo lagu dhuftay beeskayga ama salkayga meeqo waaye 3 meeqo maraa la isku dhuftay 3 mar 432 markii loo qoro jibaar ahaan waxay noqonaysaa labo ku jibaaran 4 oo lagu dhuftay 3 ku jibaaran 3 waxaan gudbayaa qodobka labaad waxaan gudbayaa inaan xalino kun isla ahaanteeda meel ay ka imaatay tiradan waxaan ugu daraynaa taranta jibaarada israda mutaxan kun soo qaado waxay isweydiinaysaa kun asal ahaan waxaa sheegtaa laba tiro la isku dhuftay oo keeni karta kun
waxay noqonaysaa laba lagu dhuftay 500 ama si fudud kun lagu qaybi waa 500 laba lagu dhuftay 500 halkee bay ka imaado waxaa sheegtaa laba tiro laisku dhuftay kaliya 500 waa laba lagu dhuftay 250 ay ka imaatay laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay 250 halkee bay ka imaatay waxaa samayn kartaa laba konton lagu qaybi bas laba loo qaybi maxaa soo baxay lagu dhuftay haddii 250 lagu qaybi waxaa soo baxay labadu qaybi soo qaada laba lagu dhuftay 125 ayaa soo baxaysa 125 ayaa soo baxaysa kadib waxaa leedahay intaan soo qaada laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay laba lagu sii dhuftay 125 maxaa keeni karo waa laba tiro la isku dhuftay keeni karta 125 raadi waxay noqonaysaa 5 lagu dhuftay 25 ama waxaa samayn kartaa 125 5 qaybi maxaa soo baxayo 25 intaan soo qaado laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 25 maxaa keeni karo 5 20 laba tiro isku dhuftay keeni karta raadi waa 5 lagu dhuftay 5 iyago waxay la mid tahay salkayga hoose waxaan haystaa 2 waa 3 jeer la isku dhuftay hal ka soo qaado koob laba 3 jibaarkayga wuxuu noqonaa 3 ama 3 oo lagu dhuftay beeskan hoose ama salkan hoose waxaan ka soo qaado 5 waxaan isku dhuftay 3 mar ayadana waa 3 halkaasna waxaan ku xaliyay qodobkii saddexaad waxaa inoo dhiman qodobka afraad oo waxaa raadinayaa 1600 inaan ka dhigno taranta jibaarada isla imtixaan marka kan adiga ayaa kaaga tagay inaad ka shaqayn karto isku day insha allah waxaa kaloo samayn kartaa saan kuu sheegay inaad tiradan u qaybisid labo kadibna israacisid wax keeni karo ada ayaan kaaga tagayaa inaad ka shaqaysid qodobkan afraad iyo sidoo kale waxqabadka meesha noogu qoran cashirka hadda aan sharxayay oo aan ka bilaabay example-ka labaad waxaan kasoo bilaabay boga 15aad boga 16aad ilaa iyo boga 17aad boga 18aad waxaa ku qoran inaad ka shaqaysid waxqabad waa u tibaa tiro ahaan jibaarada soo socdo waxaa lagu siiyey laba tiro labadaasna ka shaqaysayaa rabaa haddii aad haysid buugga xisaabta fasalka 8aad ka fiiri buugga 18aad ka shaqeey wax meesha ku qoran labadaas qayba iyo waxaan kaaga tagay inaad ka shaqayso qodobkaas afraad oo ah 16,000 inaad ka dhigtid taranta jibaarada isla imtixaan waan ka shaqaysa insha allah iyo waxaa kaloo ka soo shaqaysaa layliga buug ku qoran oo ah buugga 19aad cashirkan wuxuu noqon doonaa insha allah cashirka labaad oo ka hadli doono xeerarka jibaarada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.